باشا علي جامع وزيركii hore ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland oo maanta wareysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga ee Somali News TV ayaa ka hadlay kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Kaleyd sidoo kale waxa uu ka hadlay wada hadalka u socda Soomaaliland iyo Khaatumo hadalba Soomaaliland u socday wada hadalkaana jaano mar walba soo dhaweynay anu kala shakhsiyan inuu wada hadalka Soomaaliland la wado oo ay heshiiyaan isaga iyo Soomaaliland waxaan Cali Khaliif wax kale barablanku weyn wuxuu ahaa deegaankaas uu Cali Khaliif ka soo jeedo Khaatumo kama wada haysto kalsooni laakiin dad taageersan way jiraan marka anagu waxba kama qabo in Soomaaliland la hadlo يلو لحية طول. والله أنا بحقول ما يجي وده هذا الخاطبية Soomaaliland كده السعودة. مركي جدا بسواتي جيبوتي. وأنا أركي رجودي ده كم ده. لأنه حيل هذا برلمان دمبي. أيام لنا. كوده هذا السوق بكبوري لا هذا بنوبي. لكن كل سلوان شاء كم وقتها على خليفة Soomaaliland وأنا كدولة عربية. maraan wax ka weydiinay Baasha Cali Jaamac aragtidiisa ku aadan in wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Xagla Toosiye uu ka soo horjeedo wada hadalka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Khaatumo waxa uu ku jawaabay sida tan wallahi anigu ismalihi ma ogola waxa laga yaabaa in dadku khalad kala fahansan yahay ninka Soomaaliland ka tirsan Khaatumo dadku la hadlayo bay ka mid tahay سأقول لما مبدأ تاخذ فين الغلاية وزير هذا كتشوفي ديوب Soomaaliland بكتسنة الخاطبة كمان السنة لكن هذا دي هذا أنا نقول على رأي مني إنت واحد لا يعمل لكن جودهان إن Soomaaliland على له شيء هذا يسقي جروب كيسة هاي هذا شخصيا توقف ميزان له لكن أنت بتروح على سكوها خاطر يمت الشيء عديمت أنت وبدنا أنت تفهم سنين ما هي استديدين تذكر باش إذا كنت تشيله لكن ده خاطمه يمت لي سبب بدني إلى هذا أنت بدنا حنبني لنا قرب تشوقي بيمت الشيء مركب حيابون عين كاسات وهذا لدنا خاطمه وركومه كه وهذا لدو وكي هرو بلابمي أو بوغس كبلابمي على عديه كبلابمي وهذا هذا بلابمي دونه بوهود لي Soomaaliland marka processku Khaatumo waa qayb uu kamid ah mucaaradka rubaanteen ma aha wax iyaga wada waxa aanu weydiinay siyaasiga su'aal xidhiidhay siyaasiyiinta xilalka ka haya xukuumadda Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle in xafiiltan siyaasadeed oo gudahooda ka jira saameyn taban ku yeesho bulshada ay matalaan waxa uu ku jawaabay khasab way ku leeyihiin runtii siyaasiyiintu waa laba oo ragna waxay iska qabateen inay muddo badan oo dhowr iyo 20 sano Hargeysa oo iska joogaan oo iyagu ay sida happy ku yihiin in la isku xidhmay inaan la isku xidhmin aan kala jeclay siyaasiyiin badan oo anaga beesheeda caynkaas waa jira kuwa ku dadaalaya in la isku xidhmaana way jiraan marka binaadamkuna dee inuu kala ra'yi noqdo Ilaahay baa u sameeyay inuu kala fikir noqdo rag baa jira inkastoo nin waliba jeclaa in beeshu hal ku xilanto rag baa jira kaba quusto islamaba qaban kartaan hawsha ama maba dhici karto dabeedna dee beeshuna muddo badan bay mucaarad ahayd ninku lalaba yaabi maayo hadduu daalo oo yidhaahdo war waxba qaban karo laakiin muhiimku maanta beeshaas Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle degtaayaan ku soo jeeda diyaar bay u tahay Soomaaliland inay wax la qabsadaan laakiin farsamooyin la isku khilaafsan yahay habka loo maro iyo habka loo maro baa jira aaraankaas anigu habaan u arkaa in la isugu keeni karo waxa laga yaabaa wasiir kale inuu si kale wasiiradaas kale inay qaarso arkaan xildhibaanaduna si kale u arkaan laakiin habka hoosta laga soo bilaabayo oo degaan dadka loo kala qaabilay anigu arkaa habka ugu habboon ee nabad degdeg lagu gaari karo Khaatubana sideeda gaarka ah كل دد بين متسايدنا رجع لسنا وكتير. يجانا إن سيد الجار كسومالي لانه هي
gabagabadii wasiirkii hore ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac waxa uu taageeray dariiq kasta oo nabad waarta lagu dhexdhigi karo labada beelood ee diriirtu ay ku dhex martay koonfurta gobolka Sool. wallahi arrintaas waa arrin fin ku ah dadka deegaanka Sool waa dhibaato weyn oo ku habsatay waxba laga qaban karo oo nasiib darro runtii dadka badankiisu nabad way rabaan laakiin dadaan nabad rabin oo ku dhex jiraan habka wasiirka daaqiligu uu wado uu leeyahay waa gacan adag oo bira wax laga qabtaa sidii dal kale wax laga qabtay anigu waa ila saxbaan leeyahay hadii sidii kale wax lagu waayay gacan kulul lagu qabto amniga xoog lagu soo celiyo oo aan dadku deeska qaadan iminka ilaa iyo sanad marba ergaas ka daba tagis marka habkan approach-kan anigu waa maqnaay leeyahay hadeer waa xitaa odayaasha labadiidka waagii hore Ingiriisku wuxuu sameyn jiray reeraha isdila kuwan xitaa dambiga lahayn geelu ka soo xareyn jiray markaasay dan qaadan jireen marka in gacan bira lagu qabto si nabadda loo sugo fidmaduna ayna gobolka ugu wada fidin aad iyo aad bay muhiim u tahay baan anigu leeyahay Cabdishakuur Haybe telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Hargeysa.